بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبض وديال كسور وهذا ورك عالم كي كوا سوماليدا كودوا وين جرمال تي في دي هسنا وحاكمدا wiilka macallin maxamuud oo sheegay habku ku yimid kursi oo shalay ku guuleystay waraysi dheer uu bixiyay muxuusalka ku hayay warka Garmaal TV aad kaga bogo doontaan baarlamaanka dalka Turkiga oo gacan ka soo saaray muushin ka dhana ciidamada Turkiga ee ku sugan Soomaaliya habraacadii doorashadii lagu heshiiyay oo fashilmay dad safarley ah oo ku dhintay qarax la beegsaday hadaba qaraxaas uu ka dhacay yaana ka dambeeyay warka Garmaal TV ayaad kaga bogo doontaan wararka kale Garmaal TV aad kaga bogo doontaan waxaa kamid ah madaxweyne Farmaajo oo mabax magaalada Addis Ababa hadaba safarka madaxweynuhu muxuusalka ku haya warka Garmaal TV aad kaga bogo doontaan intaasi qaar kamid ah qodobada ugu door karoon warka Garmaal TV iminkan u diyaar garooba ayagoo dhameystiran aan ku bilaabay daawadayaal baarlamaanka dalka Turkiga ayaa go'aan ka soo saaray muushin ka dhanaha ciidamada Turkiga ee ku sugan Soomaaliya baarlamaanka dalkaasi ayaa ansixiyay muushin lagu dalbanay in ciidamada Turkiga ee jooga Soomaaliya loo ogolaado in halkaas joogaan ilaa 10 Febraayo 2023 muushinka ayaa waxa baarlamaanka hurgay madaxtooyada Turkiga oo custay in muddo loo kordhiyo ciidamada Turkiga ee ku soo gacanka cadmeed ee xeebaha Soomaaliya waqtiga ciidamada Turkiga joogan dalka Soomaaliya ayaa wuxuu ku ekeed 10 bisha Febraayo sanadkan waxaana hadda loogu daray muddo hal sano waa marka 14aad ee Ankara ay kordhiso joogitaanka guud ee ciidamada gacanka cadmeed tan iyo markii ugu horeysay ee meel mariyaan baarlamaanka sanadkii 2008 dowladda Turkiga ayaa Soomaaliya ka samaystay saldhig military oo weyn kaas oo ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan kuwa Turkiga oo qayb ka qaadanaya tababarada ciidamada Soomaaliya ciidamada tababarada dowladda Turkiga ayaa qayb ka qaata howlgallada ka dhanaa al-shabaab ee ka socda Soomaaliya dowladda Turkiga ayaa sanadii ugu dambeeyay saaxiib joogto ah ee Soomaaliya tan iyo markii uu soo gurmatay xilli dalka ay ka dhaceen abaartii khatarta ahayd waqtiga uu dalka madaxweyne ka ahay madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed habraacadii doorashada ee lagu heshiiyay oo fashilmay gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Ismaan Muxidiin Shataac oo warbaahinta la hadlaya shaaciyay in habraacadii doorashada lagu heshiiyay 9 bishii hore ee galin gudoomiye Ismaan ayaa sheegay in xarunta ururada bulshada rayidka ay soo gaareen cabashoon dhowr oo la xiriira doorashada golaha shacabka ee ku socota hannaan musuqmaasuqa bulshada rayidka waxay aad uga xun tahay in sidii habboonad loo hirgelin go'aanadii ka soo baxay shirkii madasha watashiga qaran ee 9 Janaayo waxayna taasi aad u sii fogaanaysaa kalsoonida shacabka ay ka qabaan doorashada dalka ayuu yiri gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Ismaan Muxidiin xarunta ururada bulshada rayidka ayaa waxaa soo gaaray warbixino muujinaya in si dhameystiran loogu dhaqmin qodobadii ka soo baxay waxayna soo jeediyeen madaxda dowlad goboleedka u fuliyaan go'aanadii ka soo baxay shirkii Muqdisho sidoo kale waxay sheegeen in wali caqabado ka jiraan sida loo xaqiijin lahaa nidaamka xulista ergooyinka xuquuqda musharaxa ee u taagan doorashada golaha shacabka iyo madax banaanida gudiyada dowlad goboleedka waxaan ugu baaqaynaa madaxda dowlad goboleedka iyo kuwa federaalka inaysan ku dhaqaaqin tilaabo kasta oo keeni karta khilaaf caqabad ku noqda doorashooyinka lagana fogaado in dhibaato ka dhalato habka gudoomiyaha ayaa ugu dambeyntii sheegay in shaki weyn ay ku muujinayaan xaqiijinta qoondada haweenka maadaama aan si rasmi ah loo dhaqangelin qodobadii lagu heshiiyay waxaana ka dalbadeen gudiyada lasoo hormaray kuraasta haweenka hadalka ayaa imaanaya xilli soo baxayaan musuqmaasuq ballaaran oo ka jira doorashada golaha shacabka iyadoo waqtiga loo qabtay lagu soo gabagabeynay ka harsan tahay 22 maalmood oo kaliya markana daawadayaal waxaa idin soo gudbinayna dad ku dhintay qarax miino ah oo ka qarxay duleedka magaalada Kismaayo khasaare aad u far badan ayaa la soo tabinaya khasaare isku jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay miino ku qarxday deegaan ku yaal duleedka magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose gaariga oo ahaa nooca Soomaalidu taqaan hoomeyda ayaa miinada nooca dhulka qabsatay xilli uu mariyay deegaan u dhow magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose wararka la helaya waxay sheegayaan qaraxaasi miinada ay ku dhinteen intoodii badnaa dadkii shacabka ah ee gaariga saarnay kuwa kalena ay ku dhaawacmeen kuwaas oo la geeyay magaalada Kismaayo saraakiil ka tirsan ciidamada Jubbaland ayaa ku iiday falkaasi qaraar in ka dambeeyay ururka al-shabaab oo ay sheegeen in miinada goobta ku aaseen dhowr jeer hore ayaa wadooyin ku yaal deegaano hoostiga magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose waxa qaraxyada la ciidamo ka tirsan kuwa Kenya ee AMISOM iyo kuwa daraawishta Jubbaland sidoo kalena ay miino ku qaraxday gawaari iyo saarnay dad shacab ah markana madaxweyne Farmaajo ayaa u ambabaxay magaalada Addis Ababa iyadoo la shaaciyay ujeedada uu safarka uu salka ku hayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo yafdi uu hogaaminayo ayaa maanta u ambabaxay magaalada Addis Ababa caasimadda dalka Itoobiya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa magaalada Addis Ababa ka qayb galaya meertada 35aad ee shirweynaha ururka midowga Afrika shirweynaha ka qayb galayaan hogaamiyaasha dalka Afrika ay madax kale waxaan looga caarisanayaa dib u habeynta ururka midowga Afrika hirgelinta higsiga ururka sanadeedka 2063 iyo wax ka qabashada caqabadaha kala duwan ee qaaradda wajahayso oo ugu horeeyaan rabshadaha saboolnimada cunayarada iyo cudurka COVID-19 markaana dagaal ka dhaca duleedka magaalada Kismaayo iyo Jubbaland ayaa faahfaahisay dagaalkaasi
dagaalka u dhexeeyay ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka Jubbaland iyo xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa wuxuu ka dhacay deegaan u yaal galbeedka magaalada Kismaayo kaasoo geystay khasaare isku jira dhimasho dhaawac. Dagaalka ayaa waxaa ka dambeeyay kadib markii Al-Shabaab ay weerareen ciidamo ka tirsan kuwa daraawiishta Jubbaland ee howlgalka waday inta u dhaxaysa deegaanada Cabdibiroole iyo Buule Xaaji, waxaana halkaas ka dhacay dagaal xooggan oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan. Gaashaanada Xadeeqo Cabdinuur Aadan oo dagaalka faahfaahiyay ayaa sheegay in howlgalku ay wadeen oo ahaa sidii loo xaqiijin lahaa amniga maadaama magaalada Kismaayo ka socoto doorashada golaha shacabka. Wuxuu hadalkiisa intaas ku daray in dagaalkii ku dhaawacmeen 2 askari halka Al-Shabaab ay gaarsiiyeen khasaare isku jira dhimasho dhaawac, welina ay wadaan howlgallo ka dhan Al-Shabaab. Dhowr jeer oo hore ayaa deegaan hoosta magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose waxaa ku dagaalamay ciidamada daraawiishta Jubbaland iyo xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab. Daawadyaal markay waxay soo gudbinayaan wiilka Macallin Maxamuud ayaa sheegay habka uu ku yimid kursiga uu ku guuleystay. wiil oo dhalo hogaamiyaha Al-Sunna wal Jamiica Sheekh Macallin Maxamuud Xasan Faarax ayaa shalay xildhibaanimo loogu doortay magaalada Dhuusamareeb ee dowlad goboleedka Galmudug. Xildhibaan Cabdisamed Macallin Maxamuud wuxuu ka mid yahay xubnihii shalay ku soo baxay doorashada ka dhacday Dhuusamareeb, inkastoo uu sheegay ku yimid awood qaybsi beeleed. Xildhibaan Cabdisamed Macallin Maxamuud ayaa BBC ugu warramay, wuxuuna sheegay in guusha xildhibaanimada uu mar labaad gaaray ku faraxsan yahay. shaqooyin horena dalka u soo qabtay, kuwa ballaaran oo dalka u qaban doono diyaar u yahay. Wuxuuna intaa ku daray inuu ka mid yahay Al-Sunna wal Jamiica oo ka sii mid ahaan doono. Xildhibaanka ayaa wuxuu jiray Al-Sunna, dadka oo dhan ayaa ah Al-Sunna, waan ahay, horena waan u ahay, haddana waa ahay. dadka Soomaaliyeed diinkooda iyo caqiidadooda dhan waa Al-Sunna. waan ka soo shaqeeyay, waana ka shaqeynayaa insha Allah. wax hadda isbedel oo gaar ah jira ma jirto, ayuu yiri xildhibaan Cabdisamed Macallin Maxamuud oo ah wiilka hogaamiyaha Al-Sunna wal Jamiica. wuxuu intaas ku daray muddo badan uu ka soo shaqeeyay dowladda dhexe iyo heshiiska Al-Sunna iyo maamul Galmudug. sidoo kale sheegay in guusha uu gaaray ay ku timid awood qaybsi 4.5, balse uu sheegay waxba ka jirin hadalka sheegaya waxyaabaha Al-Sunna u dagaalantay inuu ka mid ahaa kursigaasi. gudoomiyaha guud ee Al-Sunna wal Jamiica Sheekh Maxamuud Sheekh Xasan Faarax oo ah Cabdisamed aabiis ayaa dabayaaqadii sanadkii wareysi gaar wuxuu ku beeniyay wararka sheegay in wiilkiisa xil u raadinayo, isagoo sheegay in Al-Sunna dowladda Galmudug ay maamulayso balse wiilkiisa wax xil ah oo ka qaban. warkaasina oo haba yaraatay waxba ka jirin. si kastaba kursiga la siiyay Cabdisamed Macallin Maxamuud ayaa loo xiray, waxaan u muuqataa in kursigaas lagu qancinayo Al-Sunna wal Jamiica. guudaan daawadyaal kaastan ku soo gabagabeynayna warka Garmaal TV aad ka daawanaysay. nabadgelyo, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.